iyadoo guud ahaanba gobolada Somaliland shacabka reer Somaliland ay la daaladhacayaan sixir bararka cirka isku shareeray iyo lacagta dollarka oo guud ahaanba suuqyada Somaliland si weyn ugu yaraatay taasina ay sababtay shacabka qaybihiisa kala duwan inay guud ahaanba nolol adag oo dhinaca bini'aadamtinimadii ay soo food saartay taasina guud ahaanba shacabka reer Somaliland safiinta ay uga qayliyeen miyi iyo magaalaba kadib markii xoolihiina la joojiyay oo inta badan ah lafdhabarta nolosha ee dadka miyiga magaalada isku xidha oo dalalkii Carabeed ee xoolaha ka qaadan jiray Somaliland ay guud ahaan dood albaabada u xidhaan xukuumadda Somaliland oo iyadu intii hore dhagaha ka furaysatay qayladhaanta shacabka ka soo yeedhaysa iyo sixir bararka xooggan ee guud ahaanba dalkani ragaadiyay ayaa maalintii shalay kulan loogu magac daray kulankii xumad jabinta ee xukuumadda madaxweyne Siraan iyo sixir bararka iyadoo madaxa u feedhaysa ay la yeelato golaha wasiirada ayaa shan qodob oo guud ahaanba shacabka iyo adeegayaasha bulshada ay kala duwan ee shirkadaha kala fogeynaya ay fagaara cidla la soo istaagtay taasoo sheegtay amarro cusub iyo inay ku soo rogayso xadidnaan xooggan oo guud ahaanba shirkadaha iyagu isgaarsiinta iyo adeega shacabka u qaabilsan ee guud ahaantoodba uga dhow dhinaca bulshada xukuumadda Somaliland inay iyadu kula kacayso cagajugleyntii ugu horeysay shaqo xumada iyo dadaalka aan meel loo dayin ee xukuumadda Somaliland ay ku carbinayso sixir bararka go'aankii weyda ee ka soo baxay shirkii golaha wasiirada Somaliland ee aan la maadin guud ahaantiinba qodobadii ka soo baxay ayaa shacabka reer Somaliland gaar ahaan kuwa reer Awdal ay maanta uga hadleen si weyn waa kuwan dareenka shacabka ka sariflaha ka waraysa ka shirkadda ka waraysa ka ganacsiga raashinka soo dejinay lacagta Somaliland oo dhaxlin kartaa tira 7,000 Somaliland hal dollar laba laafino weliga taas ku soconaysa saaka iyadoo go'aan ay soo saartay golaha wasiiradu jabka furanka wuxuu marayaa 2,000 Somaliland furlaan dul tagay maxay isbedelay way daqiiqda iyo waa laga waxay kartaa laakiin hadii la yiraahdo lacagta la xaleeyo lacagta Somaliland dawladda Somaliland ma ka masuula 7,000 Somaliland hal dollar waa laga waxay lacagta waxaan ku bedelanayaa dollar dal Mareykan ma joogno waxa sababta lacag Somaliland u bedelaysa aniga u baahan dollarka u baahday markaan u baahanayna waxaan ku bedeshaa dollar markaan u baahanayna waxaan ku bedeshaa Somaliland go'aankii golaha wasiirada shalay soo aragta wallahi waxaan arkaa dawladda waxtari wadi waayo haddii ay waa inay iyagu dagaalaan iyaga dadka ka masuula iyaga dawladnimada marka waa inay u sameeyaan muxuu ahaa oo fadhiisiyaan sixirka hadday ka dhigayaan inkastoo inay sixirka fadhiisi garan ilaahay gooyo laakiinse dawladdu ma jaraha ma qaban karto sida dalalka la mid ah haddii ay hesho database ay bangiyada iyo bangiga Somaliland iyo shirkadaha la isku xiri karo waa run taasi waxay u baahan tahay macrifadeeda iyo aqoon bay u baahan tahay laakiin haddii aad aqoon balahayn ama aad yar bowsanayso oo aad isku kalsoonayn waxba ma sameyn kartid dadku mid ma weelinaysa adigu xal maxaad aragtaa xal waxaan arkaa inay fadhiisiyaan oo lacagta ay suuqa ku soo deynayaan ka daayaan oo sida caadiga ay u fadhiisiyaan iyagu waayo iyaga bangiga gacanta ku haya maamta maxaa inaga dhiman dalalka geeska Afrika sixir barar halkan gaadhimo jiro ma lacagteena qiimo yareynayno inagu sidii dalalka kale u haysan mise lacagta dollarka abaa iyadu inta badan wadanka kolla ka baxda kolla soo gashay waxa weeyaan ordo wadankeena wadan la aqoonsan yahay maaha wadan la aqoonsan yahay maaha maadaama wadan la aqoonsan yahay kartideenu ma wax ku wadnaa ma awoodi karno inaan wax la joojin karno waxna sameyn karno ilaa aqoonsi la helo oo dawladdu ay adkaato marka waa inaan u sabirnaa undee abaarahan iyo sixir bararka halkan taagan maxay ka dhali doonaan dalkan waxa weeyaan ilaahay baa naga deji kara abaaraha ilaahay baa naga deji kara ilaahay baa nagu xadisana laakiin anigu waxaan oran lahaa raayiyan ama diiniyan waxaan oran lahaa hay'adaha la baryayo la iska daayo ilaahay ha la baryo oran lahaa dabeetana waxa weeyaan waxaanu haysano dadkeena aan caawino oo inagu aan isku filaano oo aan iska dayno had iyo jeer cabashadan saaxib magaca Mahdi soo aragtaa go'aankii shalay golaha wasiirada ay yiraahdeen sixir bararkan ku joojinayna maxayna ka taraysaa waa faa'iido badan soo kordhinaysa marka adigu saaka waan tagay sariflayaashu waxay galeen 7,500 xagga hore ku soo celiyay lama arko lacagtii laakiinse maciishadii kursi kacday baa la arkaa wax ma ka qaban karaan golaha wasiir waxa qaban karaa hay maxaad ku cadaynaysaa adigu waan sugaynaa dabnaa shanta casho soo socday hay adigu xukuumaddii waxba ka qaban karaa ku adan go'aankii shalay golaha wasiirada golaha wasiirada ee shalay toole lacagta saadka ka hadlay lacagta saadka hawli kama taagno waxay ka taagan tahay wasiirka maaliyadda
iyo maxay ahayd baarlamanka iyana la xanaananaya way calaanu ma joogno go'aankii shalay soo aragtay anu go'aankii shalay saadka oo taw aad buu wanaagsan yahay oo dadka dhibaato badan baa ka soo masaakiinta dhibaato ka haysatay saaka lacag ka dollar hadda halkan kala baxaysa anarkii ma adan la soo baxay mise waa toona sito saaka halkan u taagantahay Allah ayna sariftaan wata lacag ka shan wata maxayna ku bedelata dollarna ku bedeshaa raba sabay bal saaka ka waran marka qiimihii hore iyo kana beegto aad baan ugu faraxsanahay saaka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qiimo dhaca ku yimid dollarka saaka shalay doorkii iyo shantii galabnimo waxa lagu sarfinay 8,000 dollar buu halka dollar ah saaka imsu maray 7,500 baa lagu yiri shan boqol shilin baa u dhaxaysa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ganacsada tahay qiimihii awal cuntada aad ku iibinaysay iyo qiimaha maanta cuntada aad ku iibinaysay ma aniga saaka faa'iido badan baa igu jirta laakiin awal khasaaro ma ku jirin جميلة برساك كور ما حد رأس فرحة هذه هذا ما حس بالدولة أظن ما أنتم ما العكس صرفنا سمسة ولا صرفين جرت ما يعني ما أنتم صرفنا بدنا ما صرفته ما كاش ولا $5 ما يعني كاش ها حين لو جوجو بدرا $1 دولار كذا لقى عمله يلا لقى عرّي هذول $1 بتقاطع عادي إن شاء الله معيشتي كارة ده ساق سليمتي صامت روح اسبدل ماركس هذه أربعة فرحتي ويسبدلين العقا فرح عملوا شري شمتي قال $1 كسيدتي كم متاجنا قان كنا صوب حي مرا سانو ملايين يدقلنا هذا المركز قلنا وزير الشركة قدامنا بحق اسبدلي ساكا waxa isbedelay saaka waxa arkaysaa in ma garanaysaa dadkii waxa loo waxaan sarifnaa ma garanayo qofkii shilin dollar istaan wuxuu doonayaa inay lacag badan u goyso kii cash istaan wuxuu doonayaa inay lacag badan u goyso marka dadkii ma la isku keeni kareen dibtu waxay ka taagan tahay qofkii shilin Soomaaliland istaan wuxuu doonayaa inuu lacag dollar badan u goyso oo lacag badan igu sarif ku leeyahay kii dollar istaan wuxuu ku leeyahay lacag badan igu sarif marka dhibtu waxay ka taagan tahay saakana suuqu uu khalkhalsan yahay waxa weeyaan kulli wax badan lama kala iibsanayo dadku way kala shigisan yihiin waxaan ku bilaabay saaka 7,800 baan anagu halkii dollar ku bilaabay وايد تبغى نسدد والله نكون بلده والله ما بقول بتوصل دكتور ما حيس بدلي بدي هدي هالكي ما يتاجنت هالكي بوليس تاجنت ولي واحد بدل ماين وحس بدل ماين لعقت هدي ما أنت كوري ما ده $10 هو كل كلام يصير كاش زين تضبط نسدد بنكسنين تضبط نسدد هذا أنا كاش وطلع $1 كهذا أنت هذا يسدد تضبط سدد بقول كسر قاضي 1 مليون سومالي 1 مليون هذا كوري ما ده سومالي أنا $1 زين 1 مليون ده كله صرف وبعنده كمبيوتر وبعنده لكن halka $1 waxa laga yaabaa 8,200 inaan ka qaadan لا تضبط سدد بقول يحساس كلا ما هذا قط 8,200 ka qaato 8,200 ku soo meelaha hadii noqotaa هذا كيساب بل ما حكوا جبت هذا الكي قرا وسيله شركه halkii gogolaha wasiirada ka soo baxay waxa dad ku jirta horta ganacsatada waa wali faraha qaada sarifa taas markaas la garanay inay wada ku jirtay kale lacagta Soomaaliland ee cash suuqa ma ku badan tahay mise way ku yartahay ويرتاح والله ولا هذول كبدان ما صوت سعر برك كنتنا واتا حكميي صرفك maxaa lagu xakameeyay bal dadka u sheeg maxaa la xakameeyay waxa yiraahdo waxa lagu go'aan ka soo saarnay sarifku inuu 7,000 oo shilin aanu dhaafin go'aanka waa soo dhaweynayna hadii ay ka dhameeyaan ma sameyn karaan baad leedahay way sameyn karaan hadii hawlgal adag laga sameeyo ag dalka dawladdu ma hayso bangi dhaxo lacag Soomaaliland lagu shubay dawladaha caalamkeena naqaano oo lacagta aroortii bangiga Soomaaliland ma soo go'aamiyo saaka halkaas qiimaha Soomaaliland ka dhaqaaqi doona haday tahay cunto haday tahay khudaar haday tahay dhar haday tahay ganacsi qaybiisa kala duwan Soomaaliland shirkado gacanta ugu jira ganacsiga iyo shirkadaha limidka siin kara malaynaysa dawladda siin karta kuwa kantarool kuwa ilaalin karta haye dawladdu ma aha uma yeedhinayso iyadii database bay shirkadu leedahay database bangiga Soomaaliland leeyahay laguma shaqeynayo bangiga Soomaaliland net isku xidhaya shirkadaha Soomaaliland laguma sameeynin halkii ka kantarool kartaa way ka kantarool kartaa inay $1 keento ay suuqyada dollar soo geliso dollarka laga cabanaya lagama caawin kaaskii waa taray waa in dollar la helo dollar baan jirin kaardi bangi dhaxo lacagta dollarka iyo lacagta sarifka meeleeyo xadeeyo male shirkadaha maamula waxa shirkaduhu ku maamulaan xadka ay joogsadaan un bayna si xabiguna ku qasbay dawladdu lacag ay ku kabto ay ku dheeli tirta male waxa weeyaan hadii ay dawladdu kabi karto way kabi lahayd dollarka meel bay ku xadeyn lahayd wuu yaraan lahaa Soomaaliland tabadka loo joojin karo wasiirka madaxweynaha joojin karo kood bay lacagtiisa ku jirtaa mana joojin karaan tan ilaa Mareykan wax ka jira malakaas been
ilmaha xal dhashay imika dhalanaya ogyahay inuunan saadka la joojin karin dawladda maxaad ugu baaqaysaa marka dawladdu waxaan ugu baaqaynaa inay doolarka dalka ka mamnuucdo haddii ay dawlad noqoto ay adkaato waa inay bangi dhexe ay banku maro ay lacagtu marto samayso haddii ay samayso ay doolarka xadayso Soomaaliland wax lagu iibsanaya shilinka hoos buu tagaya afarta shilinka haysata ee dawladda maamusha ganacsadayaasha waxaad aragtaa ganacsiga lagu damin karo waxa lagu damin karayaa lacagta shilin Soomaaliland in la qaato shilinka Soomaaliland la qaato oo qiimaha loo yeero wata taasina waa taas taas dollarka fiican oo waxaan ugu iibsanaynaa hay wallahi baaqaad ku diraysaa loo wartaan isticmaal balnoosha wartaasi baynu isticmaalnaa wax ku iibsan raashinka taas ku iibsanaynaa taasaan isticmaalnaa taasaan isticmaalnaa dadweynuhu waa kuwaas dadweynuhu lacagtaas oo ma qaadano lacagtaas oo ma qaadano wixii waxa lagu qaatay waa Hurri Axmed oo shabakada caalamiga Boorama News magaalada Boorama.